بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحاب الشانل كي وكحرن ومركلي ولاشين سارة الشانل وما تلدين ود مقال كدوان مقال الذي هوري كان حساب بدن ما شاء الله تبارك الله وموضوع كسابسن وعي قلين يوضع كمان تجيره وصوت جديد دور إن شاء الله الشيخ محمد عبد أمل سدا وضع أكتيهين مساجدي حتى والحر لكن سأل سيدي اللي يسكو وعي قلين كرو أما اللي يسكو قد بين كرأي وحلا يسكو قد بنايا عبابتيدا sida wada ogtiin xanuunkan coronavirus waxyaabo badan oo aasaar ayuu reebay ama uu ala socoto qofkii xataa ka badbaado ama qofkii aan xanuunku uusan ku dhicin intii u dhimatay Ilaahay u naxariisto intii la ildaran Ilaahay ha caafiyo intii uusan ku dhicin ayaa waxyaabo kale oo dhibaato aafaad kale oo keena ayuu ku reebay duruufaadkan aad ayay u badan yihiin axbaabteyda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadaha ka dulqaado culayska iyo dhibaatada run ahaantii dhibaatooyin badan ayaa iska jira sheekha ayaa noo faahfaahin doona insha Allah bil ikhtisaar si aad u kooban ayuu u soo khulaaseyn doona insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iidi doontaan axbaabteyda waxaan kaloo idinka raali gelinayaa axbaabteyda videoga marka hore qaab muxaadara ahaan ayaan uga warbixiyay ama aan usoo dhigay laakiin waa wacyi gelin in wax la istaro muslimiintana isku naxariistaan rifqigiina aan laga tagin sheekha ayaa kulay inoo faahfaahin doona ka faa'iideysi wanaagsan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي أنا هريب أبلن قادني كلمات كوكوبا ووعي قلنا وكساب سن حالدا وأبوري حنون كان كورونا فيروسكا oo bulshada iyo mujtamaca aan ugu talagalay baan insha Allah taala soo jeedin doonaa hadii alla idmo kelimadani waxay ku saabsan tahay cudurkan caalamka aafeeyay dhibaatooyinka uu geystay waxa kamid ah inuu dadka u dhimanayo marka laga tago iyo inta isbitaalada jiifta dhaqaalihii adduunka ayuu dhaawac weyn u geystay oo runtii dadku kuwii sii tabar yaraa oo iyagu markii horeba duruuftoodii iska adkayd haba u sii daraadeen arrintaasi marka waxay u baahan tahay in runtii la baraarujiyo khaasatan mujtamaca iyo bulshada Soomaaliyeed oo dadka aadka u tabar yar kamid ah marka laga reebo dadka qurbaha jira oo dawladahaas ku hoos nool mujtamaca intiisa kale waxay u badan yihiin dad iska aad u danyar oo iska xamaalata ah oo maalinkii wixii ay soo xamaashaan habeenkii ku nool oo quudkooda halka ka raadsada waxba ayna u oolin waxba dhiganin raasamaal aan lahayn dadkaas ay Soomaali u badan tahay maanta iyadoo markii horeba sida ay ahayd yaa haddana xaaladan oo cudurkani keenay iyo in la kala xirxiray shaqooyinkii shirkado badan shaqaalihii ay fasaxeen isu socodkii la ciriiriyay meeshii ruuxu uu ka xamaalan lahaa runtii wax weeye yani caqabad badan la hordhigay ama gurigaba lagu xanibay arrintaasi runtii waxay abuurtay xaalad mudan in la isku baraarujiyo waxaan dhihi lahaa marka Ilaahay tabaaraka wa ta'ala muddadii dheerayd ee ummadda Soomaaliyeed ay burbursanayd dhibaatadu soo gaadhay waxyaalaha Ilaahay inagu badbaadiyay inoogu naxariistay waxa kamid ah iskarab qabashada iyo wax istarka iyo isqaadashada iyo midkeena aadka u liita in runtii wax weeye aan laga tagin ama qaab saaxiibnimo la isoo xiriiriyo ama qaab qaraabanimo la isoo xiriiriyo ama qaab walaalnimo iyo islaamnimo la isoo xiriiriyo runtii arinta iyada ah waxa weeye waa wax Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ina siiyay maadaama marka arintaas aan soo wadnay maantan ay runtii aad uga sii daran tahay duruuftu ay ka sii adag tahay waxaan idinku baraarujin lahaa in la isu naxariisto oo ihsaan la isu sameeyo oo dadka tabarta yar ee xamaalatada runtii waxa duruuftoodu sii adkaatay in laga warhayo oo Soomaaliyeed runtii la isu danqado Ilaahay inta naxariisata ayuu u naxariistaa sida nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam
intaan danqanin oo naxariisanin oo aan inta tabarta yar u nuglaaninna ilaahay uma naxariisto tabaaraka wa tacaala. marka duruuftu way adag tahay runtii. dowladihii iska tabar yaraa oo ay ka mid tahay deegaamadan Soomaalidu u badan tahay ama dowladahan ay ku hoos nooshahay, waxa weeye dowlado faqiira weeye. xataa dadkii hadday kala xidhaan oo ay guryaha ku xanibaan oo shaqooyinkii joojiyaan, inay guryahooda ama dadkii xataa kabma u sameeyaan ma awoodi karaan ama ma u samaynayaan. arrintaasi marka culays weyn baa runtii ka soo kordhay oo kasoo yani fool leh. waxaan isleedahay dowladahan qaniga ama dowladaha wax haysta qaabkay u dhaqmeen cudurkan ay ula tacaalayaan, malaha dowladaha faqiirkii si ka duwan bay ula tacaali lahaayeen. waxaan aad iyo aad uga baqayaa xanuunkani hadduu sii yara daba dheeraado, muxuu ahay coronavirus baa hadda laga cabanayaa, laakiin dadka duruufta haysata iyo noloshii oo la xidhxidhay iyo gaajada haysata iyo yani nolol la'aanta noloshan cidhiiriga gashay, waxaan aad uga baqayaa inay runtii abuurto xaalad nafaqo xumo iyo macaluul. kadibna hal cudur baa muxuu ahay laga hadlay inay cudurro kale ka dhashaan, asagiina loo nuglaado oo loo jilco. arrintaasi waxaad moodaa yani maamulada waddamadan ka taliyay inaan aad loo fiirinin. dowladihii taajirka ah un qaabkii ay muxuu ahay mareen un in la iska dabamaray. almuhim diinteennu waxay ina leedahay ina faraysaa markay duruufaha noocan oo kale soo kordhaan in dadku ay isu naxariistaan oo la isu nuglaado, oo xataa wax kale iska dhaafe waxsiintii iyo waxtarkii iyo sadaqadii iyo qaraabo xidhiidhintii iyo ummaddii oo keedii tabarta yareyd loo naxariisto marka laga tago, xataa in muxuu ahay ganacsigii iyo mucaamalaadkii iyo tijaaraadkii lafteedii in naxariis la geliyo bay u baahan tahay. maanta guryihii kiradoodiiba meelo badan la iska bixin la'yahay, dukaamadii shaqadii iyo muxuu ahay ganacsigii baa kala socon la oo istaagay oo kiradii baa la bixin la'yahay. daymihii dadkii deymaha lagu lahaabaa daymihii gudila, yani duruuf adag baa soo korodhay. markaasoo kale waxay u baahan tahay inaynu shareecadeennu sidayna farayso inaynu wax badan aan dib u fiirino, il naxariiseedna aynu ku dayno, arrimaha inaynu ku dayno. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay kama fi saxiix albukhaari wagayrihi min xadiidi jaabir bni cabdillah, wuxuu nabigu yuri sal lla alay wasalam raxima allahu imra'an samxan ida baaca waida ishtaraa waida iqtadaa buu nabigu yuri sal lla alay wasalam. allah u naxariisto addoon muxuu ahay samxi ah, addoon dabacsan oo dabeecad macaan oo muxuu ahay saamaxa marka uu wax iibinayo iyo markuu isagu soo iibsanayo iyo markuu xaq uu leeyahay gudanayo, intaba addoon nugul oo naxariis badan oo dabacsan allah u naxariista buu nabigu yiri sal lla alay wasalam. kadalika waxaa sugan xadiidu xudayfa nabigu sal lla alay wasalam bukhaari muslim baa soo saaray. wuxuu nabigu sheegay sal lla alay wasalam nin ka mida ummadihii inaga horreeyey ayay malaa'igtu naftiisii qaaday. markaasaa markii uu ilaahay u tegey tabaaraka wa tacaala ayaa waxaa lagu yidhi acamilta min alkhayri shay-an, weligaa wax khayra ma samaysay baa la yidhi. markaasuu wuxuu yidhi keliya waxaan garanayaa oon xusuustaa nin waxaan ahaa ganacsado ah, dhallinyaraa ii shaqayn jirtay, waxaan ku dhihi jiray war midka daynta aad ku leedihiina caydha ah, ruuxii dayn aan ku yeelanay waxba haysanin iska saamaxa, midkii wax haysta laftiisana ka suga oo muxuu ahaayey wakhtiga uu yara kordhiya ayaan dhihi jiray. intaasaan garanayaa buu yidhi. markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala naxnu axaqu bidaalika minhu tajaawazu canhu. annaga arrintaa ka mudan buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala in addoommada loo naxariisto oo addoommada muxuu ahaayey loo dhaafo, annagaa ka mudan addoonka isaga ah. saas daraaddeed buu ilaahay malaa'igtiisa wuxuu ku yidhi u dhaafa dembigiisa. sidaasaa lagu saamaxay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu naxariistiisii jannadiisa ku mutay. marka yani waxay tilmaamaysaa oo xadiiska nebigu tilmaamayaa mucaamalaadku markay adkaadaan naxariis baa la geliyaa, ganacsigii naxariis baa la geliyaa, dadkii deymaha aad ku lahayd naxariis baa la geliyaa. duruuf baa soo korodhay, duruufta soo korodhay marka qiimeyn bay u baahan tahay. dadkii ayagu yani sii adkaayo iyagu noloshooda adkaydoo bulshada qaybteedii hoosahaydiga iska badaa, iyagu kuma sii jiraan, muxuu ahaay waa iyagu dabaylahan dadka ku dhacaya u faruuran yihiin. wixii dabayl maanta dhacaysay
hebel yani wax weeye ma joogtay buu yidhi adugu ma u farurayd buu yidhi soomaali marka wax weeye masaa'ibta caalamka ku dhacaysay waxay iyadu sii sidataa inay u faruuran tahay oo u jilicsanto oo u dabacsan tahay waxaan marka doonayaa inaan idin gaadhsiiyo fariin ah intii wax haysatay maanta waa imtixaanan tahay shirkadihii waaweynaa raggii xoolaha haystay dadkii wax haystay imtixaan baa yaan runtii wax weye intii hore ka adag baa soo waajahay kuwa tabarta yar ee intii yareeda xamaalayayna maanta ka xidhxidhantay idinkaasaa laydinku fiirsanayaa soomaaliya markaa laysu naxariisto ruux walba ruuxii uu gaari karo wixii gacantiisu gaari karto dadkaa tabarta yar ee shaqooyinku ka xidhmeen khaasatan ha loo naxariisto oo halayska warhayo insha allahu tacaala nabigeenuna sal alla alay wasalam markii aayaadka ilaahay ee kowniga ah ee addoommadiisa uu ku cabsiinahayo ku cabsi gelinayo markay dhacaan nebigu wuxuu dhihi jiray sal alla alay wasalam sadaqada u degdega leanna sadaqada iyo ixsaanka iyo waxtarku waa wax weeyaan waa xirsixidh yacni masaa'ib soo socotana waa lagaga hortagaa tu dhacday oo ku haysatana waa lagu qaadaayo sabab ay u noqotaa ilahay inuu kaa qaado tabaaraka wa tacaala wahal jazaau lixsaani ila alixsaan markaad ixsaan samayso abaalkaagu waa in ixsaan adigana laguu sameeyo wa axsin kama axsana allahu ilayka sida markii ilahay ixsaan kuu sameeyaba adiguna khalqiganaad ixsaan u samayso loo doonayo ayaa markaad ixsaan samayso haddana abaalkaagu waa in ixsaan laguu sameeyo aafaadkan marka ilaahayna garamariyo oo cudurradan ilaahay tabaaraka wa tacaala ummadda ha garamariyo oo inta uu ku dhacayna ilaahay ha ka caafiyo tabaaraka wa tacaala inta uusan ku dhicinna ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka samata bixiyo oo ha ka ilaaliyo soomaaliya ha lays ogaado ha laysu naxariisto ha laysu danqado ha laystaro ka tabarta daran ha la ogaado qoysaska duruufahoodu aad u adag yihiin oo noloshii ay ka soo xidhantay si gooni ha looga warhayo derisku deriskiisa ha ka warhayo ehelkii qaraabadii iyo xigtadii ha la xidhiidhiyo maanta duruuf adag baan maraynaa allah inaga samata bixiyo waxaynu kaga samata bixi karna waxaa ka mid a marka sidaa isugu naxariisanno wax istarno innagana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo naxariisanaya aafaadkana ilaahay inaga sarfinaya ina garamarinaya ilaahay tabaaraka wa tacaala ajir aakhiriya jannadiisa iyo ridihiisu ina siinaya allah tabaaraka wa tacaala muxuu ahaaye tu ku haysato iyo dhibaato ku haysato ilaahay kaaga qaadaya ama xanuun ha noqdo ama culays kale ha noqdo ama dhibaatooyin kale ha noqdeen marka allah idin barakeeyo ha layska warhayo hana laysu naxariisto ha laysu dabacsanaado duruuftana ina haysatana insha allahu tacaala yani wax weeye mucaamalaadkeennii iyo wixiina dhex maray oo dhan iyo wixiina dhex yaallo oo dhan insha allahu tacaala il gooni ah iyo il cusub ha lagu fiiriyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaaha naga dhiga axbaabteyda kuwa waanada iyo wanaagga qaato markii loo sheegay insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka wada hesheen maasha allah tabaaraka allah waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan jazaakum allahu khayra assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh